farmaajow qortaaga iyo tuurtaad fadhido ka tanaasulo isoo tallow muusow qortaaga iyo tuurtaad fadhida ka tanaasulo isu soo talaaba wada hadal qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Somaliland ayaa waxa ay fikirkooda ka dhiibteen sida ay u arkaan kulanka dalka Djibouti ku dhexmari doona madaxweynayaasha Somaliland iyo Somalia waa kuwan bulshada oo dareenkooda ka dhiibanaya arintaasi waxa weeye muhiimiyada la baaraya mustaqbalka dhalinyaradan maanta jaamacadaha iyo iskuulada ka qalin jabisay sidaan mustaqbalkooda u lumeen sidii dalkan uu noqon lahaa dal madax bannaan marka inaga dambe inoogu jirto wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland balse waxaad ogaataa inaan tuurta lagu qaadi karin dalkan muusana ma qaadi karo Faysal Xaraamana ma qaadi karo Cabdiraxmaan Cirrana ma qaadi karo ka guurtida haystana ma qaadi karo Shiraya degayna ma qaadi karo dalkan dad baare eeganaya madaxweynuhu waa hogaamiye balse Soomaaliya ma geyn karo inuu khasbi karo Cabdiraxmaan baa tagay isagoo Soomaaliya madaxweynaha